maxay Da Vinci, Picasso, Isaac Newton iyo Albert Einstein ay la wadaagaan Maradona, Rivaldo iyo Messi? Dhammaantoodaba waa dad aqli badan, waana dad bidixda isticmaala ama gurey ah. Ma waxay leeyihiin wax u khaas ah? La soco muuqaalka. Assalaamu calaykum waraxmatullah. Daawadayaal, waxay nagala socotaan wax kasto TV. Waxaa idinla hadlaya anigoo ah Faraseef. Kusoo dhawaada channelkeena. Haddii aad ka hesho mawduucyada noocan oo kale ah, subscribe noo dheh. Haddii muuqaalkan ku cajabina like noo saar. Waad mahadsan tahay. Maxay khaas ku yihiin dadka bidixda isticmaala ama gureyga ah? Maxay tahay sababta keentay ciyaartooyda bidixda ku ciyaara inay ka fiicnaadaan ciyaartooyda midigta ku ciyaarto? qof walba ciyaartooy oo bidix ahna meel walba oo joogo garoon walba ku jiro ka muuqanaya. maxaa keenay sababtaas waxaan u haynaa xaqiiqo cilmiyeed in haddaan idin soo gudbin doonaa. Dadka isticmaala gacantooda bidixda ah iyo lugtooda bidixda ah waxay adeegsadaan cirifka midigeed ee maskaxda. qaybtaasi oo maskaxda ka mid ah waxay qaabilsan tahay creativity, xalal cusub inaad la imaadid, qorshooyin cusub, wax cusub inaad la imaadid, hal abuur inaad leedahay, intuition oo iyadana ah go'aamo degdeg inaad qaadan kartid oo kale, oo si kama yar go'aan aad ku qaadan kartid, iyo qayb saddexaad oo ah emotions inaad dareenka ka hadli kartid oo kale, suugaanta oo kale. dadkaas abwaanada badanaa waa dad gurey bidixda isticmaalaan. qaabkaasaan u fududeeya suugaanta inaad dareenkaada si fiican uga hadashid oo soo bandhigtid. marka faa'iidooyinkaas ay leedahay bidixda in la isticmaalo. Markii kubadda cagta laga soo tago, haddii la fiiriyo sports-yada kale sida feerto kale, dadka ugu feerto kulul bidix bay wada ahaayeen inta ugu badan. dadka oo ugu fiicnaa muusikada sida Jimi Hendrix oo kale, gitaarka sidoo uu bidixda u ciyaar darteeda ayuu gitaarka inuu furfuray oo qaab bidixeed u sameystay. waa ninka ugu fiicnaa ee gitaar garaaca abid. adduunyada waxay u sameysan tahay dadka isticmaala gacantooda midigta ah iyo lugta midigta ah. tusaale ahaan oo kale, qalabyada badanaa waxaa lagu soo talagalaa in midigta lagu isticmaalo. albaabadoo kale midigta in lagu isticmaalo lagu talagalaa. baabuurtoo kale lugta bareega lagu qabanayo midigta waaye. sidaas nambaradaas marka aan aragno waxay ka dhigaysaa dadka gureyga ah inay mujtamac ay ku yar yihiin, oo 10 ilaa 12% mujtamaca ama bulshada ay tahay gurey. nambarkaasi kaliya ayaa ka dhigaya inay dad khaas yihiin. sidoo kale markii kubadda cagta la aado way ku yar yihiin ciyaartooy gurey ah. gurey badanaa ma la helo, dad khaas ah oo la heli karin. ciyaartooyda gurta ku ciyaarto waxay haystaan wax khaas ah. naadiyaashana badanaa ma helaano qof gurey ah. haddii ay gurey helaanana ma deeyaano. naadiyaashu way u rafaadaan si ay u helaano dambeed bidixeed. haddii ay helaanana marna ma fasaxaano, sida David Alaba oo kale iyo Martial oo kale. ciyaartooyda ku ciyaarta lugtooda bidixda ah waxay leeyihiin ama ku leeyihiin lugtooda bidixda ah dareen khaas ah iyo taabasho khaas ah, waxayna ugu fiican yihiin. hashaas lug ayaa ku filan sidee u noqdaano ciyaartooy caalami ah. Rivaldo 1999 Copa America wuxuu ku guuleystay ciyaartooyga ugu fiicnaa Copa America asigoona isticmaalin lugtiisa midigta. hal mar booni kuma taabanin. marka meesha maraan waa arkoosin. Arjen Robben oo kale hadda weli ma fadhiisan inuu fadhiisto oo soo laabtay, laakiin halaasana uu dheelaa wuxuu dhaliyay 219 gool. 11 gool kamid ah bislo midigtiisa ku dhaliyay, halaha kale bidixdu ku dhalinay. marka ayaga lugtaas la isticmaalayna lug kale ma u baahno. Maradona xataa isku day jiray inuu midigtiisa booni ku karooso. ciyaartooyda adduunka uu darbada kululna waa ciyaartooy bidix ah sida Roberto Carlos oo kale, Lukaku oo kale, Hulk oo Brazilianka. dadkaas lagu wada xabadaha ka dhacayaan banooni ma waxaas.